waxaa shaki ku jirin inay noo qabsoomeen howlo waaweyn oo waxtar u leh amniga iyo xasiloonida dalka ayadoo xaaladda dhaqaale siyaasadeed iyo heerka farsamo iyo qalab ee aan ku shaqaynaynaba aysan marnaba u dhigmin ka hortagga qorshayaalka nooca cadow ee aan la dirirayn haddaba anigoo tixgelinayo xaaladda uu dalku marayo waxaan si rasmi ah u caddaynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirka amniga qaranka anigoo rajaynaya in xilkaasi culus ee aan hayay cid alle ciddii loo magacaabo shacabka Soomaaliyeed uu garab ku siin doono gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay'adaha amniga shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasta ee gacan ugu siisay gudashada xilkayga muddadii aan xilka hayay cabdikariim xuseen gureed waa mahadsantihiin